hadiyad loogu keeno waa in aqbal kartaa. waxaa jirtay hadda ka hor nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nin masaakiin ah wuxuu u keenay xirmo canab ah. xirmadii canabka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u keenay. nabigana waxaa hareeris fidiyey asxaabtiisa. marka hadiyad ahaan marka uu keenay xirmadii canabka ahayd ayaa mid ka mid ayuu cunay, haddana mid kale ayuu cunay ilaa yacni xirmadii canabka uu ka dhameeyo. ninkii masaakiinka aad ay ugu farxay, kadibna uu dhaqaajiyey. asxaabtiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni hareeris fidisay mid ka mid ah yacni wuxuu su'aalay nabi allo maxaa yacni waxaan u siin waasay xirmada canabka ahayd, ilaa nabiga yacni waxaa lagu yaqaanay qof deeqsi ah. markaas wuxuu ku yiri yacni xirmadaas yacni canabkaas daadin siin lahay yacni waxaad dhihi lahaydeen waa mid qaraar. marka meeshaas yacni waxaan fahmi karnaa waxay tahay in maxaa yirahdaa hadiyadaas loo keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuusan dhihin yacni xirmadan macnaha canabkaani waa mid qaraar, balse waa uu dhameeyey. ninkiina yacni asigoo faraxsan ayuu baxay. marka waxaan ka garan karnaa waxay tahay in maanta wax alaal wixii lagu keeno in aqbal karto, yacni hadiyadaha aad aqbal karto. yacni hadhihin hadiyadan waa mid xun, yacni hadhihin oo ha oran hadiyadan yacni ma ahan wax aniga lagu talgalay. yacni si wax ugu badan dumarka haddii maanta wax adiga aad lasoo jeclaysato hadiyadaas yacni qaali ama raqiis midkood ha ahaado, waxaa laga yaabaa wixii adiga qalbiga ka soo go'ay yacni aad lasoo jeclaysatay ama yacni u keentay, waxaa laga yaabaa inay kugu tiraahdo ama yacni mid ay kaga jibso ku dhahdo yacni waxaana u qalmaa, yacni wax ka weyn u qalmo, yacni hadiyadan ma aha wax aniga yacni aan u qalmo. marka yacni ugu yaraan hadiyad haddii lagu keeno at least inaad dhihi kartaa thank you, waa mahadsan tahay. asalaamu calaykum, bye bye.